عوضو taariikhdu tahay 11 bisha 12aad shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay barnaamijkii iyo dacwooyinkii noo socday maalmahanba oo maalintii dhaweed aan beeninay amba aan sheegnay inaan ku qanacsanayn sida guddiga xalinta khilaafaadku ay wax u wadaan guddiga xalinta khilaafaadka waxaan caddaynay ayagoon sharciga habraacooda aysan ku qorayn in wax lagu daro inay ku darsadeen 10 maalmood 10kaas maalmood oo sharci darrada ahayd waxay ku sheegeen inay wax ku baarayaan waraysiya ku qaadayaan dadka dacwadu ka dhaxaysa ay dhageysanayaan waxaan rabnaa maanta inaan u caddayno ummadda Soomaaliyeed oo cadaaladda iyo habdhiska dawladnimada indhaha ku haysa iyo dadka kursigan 67 lagu matalaba inaan u caddayno 6 maalmood oo la soo dhaafay oo ay qaateen guddiga xalinta khilaafaadka 10 maalmood ay qaateen 6 maalmood oo ka baxday inaan wax nalala wadaagay aysan jirin in wax dacwo ah oo la qaada aysan jirin in haddaan wacnana taleefanada ay naga qaba waayeen haddaanu fariin qoraaneed u dhignana ay noo jawaabi waayeen waxaan rabnaa marka inaan u caddayno ummadda Soomaaliyeed sida aan marka horeba ku dhaliilaynay inay u muuqdaan oo ujeeddada ay wax dib ugu dhigteen aysan ahayn hubanti ka dhimana ay tahay ujeeddooyin kale ay ayagu leeyihiin iyo gurrucnaanta aan ku dareemaynay intaasaanu rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u caddayno waxaan rabaa mar labaad inaan idhaahdo kursigaas 67 ma ku dhacmaayo haddii loo maleeyo inuu sidaas ku qaadmaayo ma ku qaadmaayo waxaan cadaalad ahayn oo kursigaas lagu qaadan karaa ma jiraan sharci darrana cid laga aqbalayaa ma jirto sidaas awgeed ummadda Soomaaliyeed iyo kursigaas dadka iskaleba waxaan u caddaynaynaa iyo beesha caalamkaba waxaan u caddaynaynaa inaan waxa socdaa ahayn hubin iyo baaritaan inaysan ahayn ee dabandaabyo iyo wax isdabamarin ay yihiin sidoo kale waxaan rabaa kursigaas waxaa lagu metelaa dadka degmada Xarar Dheere ilaa Turdha inta ka dhaxaysa dadka degaa lagu metelaa wuxuu ka mid yahay dadkaasi 3 kursi ee galmudug u taalow ka mid yahay kursigu ugu horeeyana way u jeedaan sida loola tacaamulayo amba loola dhaqmaayo waxay ila tahay hadda inay go'aan ka qaataan dadka baaxadaas degan kursigoodii oo ay ku jiraan dad hami u leh inay dalka hoggaamiyaan oo ay ku jiraan dadkii dalkan soo hoggaami jiray oo ay ku jiraan dad siyaasadaha magac weyn ku leh lagu yaqaano oo ay ku jiraan dad culamaa u diinka magac weyn ku leh lagu yaqaano oo ay ku jiraan dad ganacsiga magac weyn ku leh lagu yaqaano oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ummaddan caan ka ah si macna darraa kursigooda inaan lagu qaadan karin oo aysan ka raali ahayn dadka damaca uga jira intaasaan rabaa inaan ogeysiiyo waxaan rabaa dadka intaas degow
kursigu idinkugu horreeyey oo laga bilaabay doorashada golaha shacabka oo galmudug kuraasta idinteel ka mid ah sida la raba in lagu qaato waad u jeediin sidaas haddee si aad uga heri kartiin inaysan ahaynna waan ognahay si aan aqbalaynana maahan waxaan rabnaa waddankaani talow u baahan yahay taladiisina idinkama sokayso waxaan idinka sugaynaa maalmaha soo socda jawaabaha aad ka bixisiin aan idinka sugaynaa annaguna meesha wax joogaan waan idin caddaynay meel aan uga hari karna amba aan ku daynayna inaysan ahayna horena waa u sheegnay haddaana waa sheegaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad sheegaynaa waddankaanu xasilooni oo u baahan yahay sida haatan wax u muuqdaana sow xasiloonida ku helaya maahan waxaan mar labaad baaqayga u jeedinayaa mar saddexaad ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed oo isagu xukuumadda doorashooyinka ka wakiilka uu madax u yahay mudane ra-iisul wasaare taariikhda soo socotaahi wixii kuu geli lahay halkaanay ka bilaabanayaan halkaan haddaad wanaag ka bilowdo wanaagaa kuu bilowday haddii go-aan yaro iyo haddii alla kuuroy xumaanu kaaga bilaabatana xumaantaasaa kuu bilaabatay idaana kuu qaangaare annagoo ku rajo weyn oo hamigaanyo aada u sarreeyo oo waxaan kaa aragna kuugu mahad celinayna waxa ku hor yaalo aan kaa sugayno cadaaladana waxaan rabnaa si wanaagsan inay u dhacdo go-aankuna adiga uu nooga kaa xiran yahay inta kale waa ka rajo dhignay hadda adiga go-aankaadana go-aamadan ka dambay doonaan haddii ilaahay yiraa waxaan rabnaa shirkaan iyo jaraa-id inaanu ku wajahno dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo inta soomaali danaysay kursigaas aanu ka soo hadlaynay 2 asbuucoo lasoo dhaafay haddana natiijadiisa halkaas marayso ayaan rabnaa sida looga hadlo amba sida loola tacaamulo inay Soomaaliya u aali doontaan rabnaa inaan u cadayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa mahadsan